وزير الخديجة الشيخ أمل وعن ليها وسيردنا ووسيرد وقف مسؤولة حرمة الله الشيخ أمل وأن الشيخة حرم لي لابد هو بني آدم وخلدمي كرام لكن حقي لابدين أن ديدنو قفنا كان كطورو كنا كان كطورو شعب كي تهورين أي نقدان لسكو طورو ولا في عين dabcasar ayaa si adag ula hadlay wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye isagoona sheegay in haboon tahay wasiirad Khadiija in la iska celiyo isla markaana ay ka mid tahay dadka in dhaqamada xunxun lagu faafiyo baraha bulshada iyo guud ahaanba fasahaadka ka jira dalka Soomaaliya lacag ku soo qaatay iyo qayb ka tahay Marwo Khadiija Maxamed Diiriye haddaba dabcasar waxa uu sheegay in isaga uu ahaa shakhsi qaladaad badan ka gala dadka markaasi sumcadda ku dhaxlay bulshada Soomaaliyeed qabaa'ilada u gafa had iyo jeer wax waliba afkiisa soo qabta ku hadaaqa laakiin ugu dambeyn markii uu Kacbada tagay uu go'aansaday in waxyaabahaasi uu dhan uu joojiyo isla markaana waa la u toobad keeno haddaba saaxiibayaal dabcasar waxa uu sheegay in Khadiija Maxamed Diiriye sababaha ay ugu soo noqonayso xubinnimada baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba inay tahay in markaasi lacag ku soo qaadatay in fasahaad ay ku faafiso gudaha dalkeena Soomaaliya haddaba saaxiibayaal intaan u gudagal markor waxaan ka dalbanaynaa channelka Xamracada TV subscribe ina dhaadi gambalelkana aad furasaydi soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan soo bandhigno hadaad hore inoo la joogtana madaxaad inoo saaran tihiin dhaliil amaan bogaadinta iyo tusaalaha dad inoo heysaan qaybta comment inoogu reeba sheertana ku sii qabta si aan u helno saaxiibo wanaagsan adigoo kale dabcasar ayaa markan baalaha ka rifayay Khadiija Maxamed Diiriye waxa uu sheegay in culimada hadii ay soo sheegaan waxyaabaha markaasi ay kugu arkaan qaladaadka in la qaato iyo haboon tahay dabcasar qudhiisa markan waxa uu sheekh ka dhigayaa Maxamed Cabdi Umal oo inta badan lagu yaqaan in waxyaabaha mararka qaar markii uu arka ka aamusa laakiin markii uu doonana afka furta labadii maalin ee ugu dambeysay Khadiija Maxamed Diiriye iyo Maxamed Cabdi Umal ayaa ishayay ugu dambeyn sheekadoodii waxa ay gaadhay meeshii ugu sareysay waa la isku soo jawaabaya حتى dadka social media ama baraha bulshada caanka ayaa labadaba u kala safanaya qaarkood waxa ay garab istaagayaan Marwo Khadiija Maxamed Diiriye halka kuwa kalena ay garab istaagayaan Maxamed Cabdi Umal Khadiija Maxamed Diiriye ayaa lagu haystaa surwaal iyadoo wadata inay ka duushay garoonka diyaaradaha Dancad ee magaalada Muqdisho hadii iyadoo wasiiradii haweenka ay sidaan u dhaqmaysay bal tusaale ahaan gabdhihii ay wasiirada u ahayd maxaa laga filan karaa waa su'aal inta badan isweydiinayeen bulshada ku tixan social media iyo guud ahaanba kuwa indheeya arrimaha Soomaaliya ka jira haddaba dabcasar waxa uu sheegay in Khadiija Maxamed Diiriye aan la aqoonin sheekadeeda isla markaana aan loogeyn laakiin dalal shisheeye ama reer galbeedka ay lacag kaga soo qaadatay si ay markaasi Soomaaliya gudaheeda ay ku faafiso dhaqamada markaasi aan wanaagsaneyn haddaba waa haweeneyda dhowr iyo 20 sano ay ku jirta saaxada siyaasadda Soomaaliya markan waxa la rabay in markaasi ay toobad keento isla markaana ay asturto iyadoona ku mashquulsan adduunka iyo waliba waxyaabaha markaasi la leeyahay waa lagu kada Soomaaliya haddaba waxa uu yiri yaa runta u sheegay Khadiija Maxamed Diiriye mise waxay hilmaamtay in adduunyadan ay tahay meel laga tagayo isla markaana ay dambeyso meel markaasi la iskula xisaabtamayo waxa adduunka dushiisa lagu soo sameeyay dabcasar waxa uu sheegay in qof waliba oo bini'aadam ah oo qalad ka dhahayo laakiin waxa la isdheeriyahay in qofka hadii la yiraahdo walaal waad qaldan tahay dambigaas ayaad gashay inuu durba ka toobad keeno qofku jecelaya wax ku sheega qaladaad badan ayaa dhaca dadkaas qaladaadka galay wax looma sheega laakiin Khadiija Maxamed Diiriye waa la jecel yahay maadaama ay tahay hooyo Soomaaliyeed waxa laga doonayay inay tiraahdo aad bad u maasan tahay umulow waan qaatay waxyaabaha hadii ku soo eedeyso waan iska dhaafi doonaa durba inay iska dhaafto iska day waxa ay bilowday inay jawaabto isla markaana ay aflagaadeyso wadaadka Maxamed Cabdi Umal haddaba dabcasar oo arrimahaasi ka hadlaya saaxiibayaalna la daawada
adigana daawuriya saaxiib aragtidaada waa inoo muhiim fikirkaagana xor baad u tahay qaybta commentiga wadda nagula wadaagi karta aragti ahaan sidaad u aragto hadalka dabcasar ee ku aadan in Khadiija Maxamed Diiriye ay haboonta in la iska celiyo waliba meel la iska saaro haddii sheekadeeda ay sidan ku sii socotana fasahaad badan ayaa imaan doona oo iyada hooyo iyo aabay u tahay dadka shirarkooda iyo faqoodu khayr malahan qofkii sadaqadadka fara mooye ama wanaag fara mooye aw islaahin bayna annaas dadku inay heshiyaan culummada iyo madaxda Soomaaliyeed ee isu jawaabaya ama la kala saftay wasiir Khadiijo iyo Sheekh Umal waxaan leeyahay wasiiraduna waa wasiirad qof mas'uul ah xurmay leedahay Sheekh Umalna waa nin sheekh ah xurmu leeyahay labadooduna waa bani aadam waa khaldami karaan laakiin xaqi labadeen aan diidno qofna kan ku tuuro kana kan ku tuuro kana kan ku tuuro shacabkii jahwareer ay noqdaan la isku tuuro waa laga fiican yahay xaqi baa dayacmay marka anigu waan khaldamaa khaladaad badan baa iga dhici jiray baraha bulshada dambi badan baa iga dhici jiray qabaa'il baan u gafay ummad ilaahay baan u gafi jiray hase yeeshee waxaas beydka ilaahay Makka iyo Madiina wamaca dalika halkaan markaa ibn caabud waa yaa London kuwa iga soo jawaabay iga soo caayaya yaan saakaniga u jawaabay oo simbir raacday ilka Maxamed Ali yiraahdo inaan u jawaabana ma ahayn way u banaaburtay حي إلهي يقول والذين هم عن اللغو معرضون مؤمنين تقوى قوة عن تربقش كتشيت سده عن تربقش ما لا يعني كتشيت سدوي مؤمنين تأنوا جناها إلهي زكدي ولو فرسو زكد الله بحي يصلاة دي وحقود حيسيي عن تربقش كأولا كتشيت سدو يدك الجاهلين اللغو ما لا يعني يقوى الله إنا لو جواب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فيه الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنين تقول يستي جنة يا خير يا ريت نار كبد بعدين وقوة الدنيا غير اللي باني وقوة صلاة خشوعة محل وعجي بالزكاة ما والذين هم عن اللغو معرضون بالوحشي هو اللغو ما لا يعني كتشي عند ربقش الزكاة بالوحشي الذين هم للزكاة فاعلون الزكاة به وحال وسع شيء والذين هم لفروجهم حافظون هو فرج وذا حفظية سرقي حارانك حفظية الزنا دي وحاكور ري عرب كل حفظيه يا كوريا زكدي وحا لو هرمري عرب كل حفظيو صلاه دي با لو خجيي بل الهي سبحانه وتعالى ولا ليال صدقه فربضا ان اول بحصده وها كفي عن هذا الوناكسن سيدي الله القران كيري قول معروف ومغفرة خير إن صدقة يتبعها أذى دب صدقة من الشيقة يدب وضطه وحاكفي عن هذا الوناكسن باكفي عن وعلينا قبها يا مركب ولا ليال وقولوا للناس حسنا لا يعيد ضدك هذا في عن كلها ورافي عن كلها سفي عن أولها ضدك وحنا كلنا ضدك قال يا مسلم بإلهي سبحانه وتعالى ضد كوردن بلوي ما قال المسلمين تكلم ضد كوردن بل إلهي وحنوجد مرنكي يضادي يقج شعدي بينوجد ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يا إلهي نوجد سبحانه وتعالى marka afka afxumadu kii saaxiibka ahaana waa ka fogeynaysaa ya
صاحب كلها وكاف غنيس حكو ترميس كي على وأنا ميل درم بك تورس على ودي سبسيك ورسالة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما